sax bay noqonoo saasay ku socon baxdigaad soo qorto beberka jaamacadu ay leeyihiin cilmigaabaa lagu qori dunidoo dhan baa soo naqdin doona falsification testkay mari doontaa ama way sugmi ama waa la burin that's all laakiin qadaayaadka afkaarta ayaa kuwa kan cidina ma buriso cidina waa la doodaa habeen iyo maalinba waa dood ka furan maxaa dhaca markaa adigoo madhan haddaad tagto weel wax lagu shubanayaad noqonaysaa adigoo madhan haddaad tagto oo maxay ka madhan waxaad rumaysnayd waad iska xambaarsantuuna ma garanaysid jaacadda waxaad ugu tegay iyadoo laisku hayo ilaahay ma jira mise ma jiro iyadoo laisku hayo nebi maxamed ma nebi buu ahaa mise ma ahayn nebiba ma jira mise ma jiro waxaad ugu tegay iyadoo laisku hayo qur-aanka ma ilaahay buu ka yimi mise basharkaa sameeyey waxaad ugu tegay iyadoo laisku hayo aakhira miyay jirtaa mise ma jirto waxaad ugu tegay iyadoo laisku hayo malaa'ig iyo jin ma jiraan mise ma jiraan idan wax kastoo adiga musallam ku ahaa markaad halkan tagto dood baa ka furan adigu ma baratay wax daliila markaa waxaad diintaada ku sugto ma tahay qof diintiisa can cilmin u qaatay mise reerihiinaad ka soo gaadhay tolkaabaa tukan jiro aadna waa tukatay adeeradaabaa masaajidka ku geyn jiro way ku geeyey idan waxaynu leenahay kow haddii aad rabto waddankan inaad wax ka noqoto horta waa inaad wax barataa aqoon la'aan waxba noqon maysid xamaal baad noqonaysa aqoon la'aan xamaal baad noqonaysa waxba baran maysid idan inaad wax barataa waa qasab inaad wax barataa waa waxa keenaya inaad bulshadan ka mid noqoto oo fahamtid inaad wax barataa waa waxa keenaya inaad jaaliyadaada kor u qaadid inaad wax barataa waa waxa keenaya identitygaaga inaad sugtid inaad wax barataa waa waxa keenaya dakhligaaga dhaqaale inuu kor u socdo laakiin meesha aad tegaysaa waalidiintuna ha ogaadaan meeshay carruurta u dirayaan waa halkaa waa meel rag isku hayo maaha meel bannaan oo intuu inanku tago xisaab loo soo dhigayo ama dhakhtar la soo barayo uu ka soo baxaya maaha waxaa la rabaa dhakhtar iswidhisha isagoo inuu ka soo baxo waxa iswidhish aaminsan yihiin isagoo aaminsan adiguna waxaad rabtaa inuu soo baxo isagoo dhakhtar soomaaliyeed oo muslima ah bulshadana wax la qaybsanaya oo dhakhtar oo caafimaad ka shaqaynaya mabaadi'diisi iyo dhaqankiisi iyo caqiidadiisiina haystay haddaba waxaynu leenahay dhallinyaroy ma u diyaar garaysanay kan dhaqamada iyo afafka laysma amaahiyo haddii intaad yartay ama markaad weyntayba wax lagu baro oo diintaada aad u baratid can cilmin aad u baratid iyo can caqiida iyo inaad ku qanacdid waad si fiican u baratid adiladay ku salaysantae caqliga ah qur-aankan aad arkaysaa ilaahay qur-aan buu nebi maxamed ku soo dejiyey quraysh ma qur-aan bay rumaysanayd maya haddana qur-aankaa lagula doodayay qur-aanku adilo caqliya buu sidaa logic qofka in wax looga dhaadhicin karo ayi daliil falsafi ay sheegaan oo caqliyi qur-aanka uu ku yaalla isagoo waadixaad odhan kartaa walidaalika qur-aanka waxaa loogu talagalay in dadaan rumaysnayn diinta lagaga dhaadhiciyo isagana mucjisaa isagana risaala isagana daliilkii nebi maxamed iyo bayinadiisiiya idan inaad xifdidaa waa gaar laakiin waxaan rabaa inaad fahamtid taxadiga kan markaa qofku intuu yar yahay haddii si fiican loo tallaalo tallaalku muxuu taraa tallaalku waxa weeyaan xanuunkii oo yaro naskhan baa lagugu mudayaa waxaa lagugu samaynayaa hadhow markaad tagto bii'a sumaysan oo xanuunkani uu ka jiro inuu jidhkaagu isdifaaci karo oo difaaca jidhkaagaa hore loo baraarujiyey markaa jeermiskaasi mar kasta uu jidhkaaga soo galo difaacaagu waa diyaar madaafiicdiisa iyo wixiisu waa diyaar waa gubayaa markaaba saa daraaddeed xanuunkaa uu iska caabin karaa waxaa la mid ah qofka haddii caqiidadiisa si fiican loo baro loo toosiyo hadhow shubahaadka uu iska celin karaya haddiise aan marka hore baranin waa adagtay si uu isaga celiyo waxaan leeyahay cilmigaa la kala qaataa cultureka lama kala ammaanaysto walidaalika had iyo goor waxaan tilmaamaa nukat ay ka sheegaan ninkii gandi la odhan jiray mahatma gandi nin aqoon-yahana buu ahaa oo waddankiisa rabay xornimo inuu horseedo oo aragtidan basifamka la yidhahdo maxay yidhahdaan pacifism in aad si nabadgelyo aad dagaal ku gashid aragtidaa dunida ku faafiyey mahatma gandi aqoon-yahan buu ahaa laakiin
wuxuu ka santaagi jiray dhaqan cid kale inuu qaato saa awgeed wuxuu xidhan jiray laba go' oo cadcad iyo ul buu qaadan jiray labada go' diintan uu haystay iyo dadkiisu waxay dhaqan u lahaayeen go'a hoose marka la guntado inta la duuduubaabaa dabagelis xagga dambaa la geliyaa marka labada din dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sidan bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu u xidhan yahay dadka waaweyn baa saa u xidhan waxay sheegaan isagoo wixiisaa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisu inuu helo markaa ushiisiina sita labadiisii go'na sita waxay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisan oo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this waa maxay maradana dabada gashatay ku xidhantay maxay tahay gaandiinta aanu maradiisa ka jawaabin buu wuxuu weydiiyey what is this taygii uu kana xidhnaa ayuu yidhi kani waa maxay ninka wuxuu yidhi this is necktie kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanayo waa qoor ku xidhan and this is back tie buu ku yidhi markaa yacni maxaa ka dhigay adigu maradaad qoorta sudhatana wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyey hadba qoortaad mid iskaga xidhaye anna halkaan iskaga xidhaan buu yidhi tanna back tie baa la yidhaahdaa tanna necktie baa la yidhahdaa maxaan uga dan leeyay waxaan uga dan leeyay kaljaradu maaha cilmi hamoodin markaad u timaado iyagoo ama dhafoor xirtay ama marada jeexjeexan qaatay ama kan qaatay ammaan maaha it's a culture waa dhaqan ay iyagu yeesheen adiga waxa lagaaga baahanya waxa weeye inaad dadnimadaada ku faantid dhaqankaaga inaad ku faantid waxaad leedahay inaad ku faantid maaha inaad maydhantid oo kullu naaciq qof kasta oo qayliyey wuxuu sheegay inaad raacdo maaha waa inaad qof bini aadama oo jira oo dhaqan iyo afla aad ahaatid waa inaad luminin caqaa'idda iyo valueska aad aaminsan tahay value islaamnimadu waxayna fartay in ballanka la oofiyo in run la sheego in dadka si fiican loola dhaqmo halkan markaad timaado inaad wixiiba ka baxdo been daldashid oo ballanka ka baxdid oo waxaad doontaad samaysid dee saasi ma aha saas waadoo maydhmay saasi waxay leenahay waxbaro waa marka koowaad ma raba inaad xamaal noqotid waxaan rabaa qof waxbartay oo xogsan karaya inaad noqoto at the same time waxaan rabaa inaad noqoto qof mabaadi iyo diin xambaarsan qof dhaqan iyo dadnimo leh qof wax rumaysan inaad noqotid haddaba waxaan leenahay dhallinyaro inaad wax barataan 3 challenge oo waaweyn baa idinka hor iman doona 3duba daawo way leeyiin haddaad ku tala gashaan challenge-ka koowaad waa challenge-ka shubahaadka ah in diintaada lagaa shaki geliyo dhaqamo cid kalena lagu ammaano lagu qurxiyo lagu tasyiiniyo la ammaano cid waliba waxeeda markay ammaanayso waa cadaalad iyo waa xuquuq iyo wax kale ku dheehdaan laguma yidhaahdo iminka marka waddan lagu duulayo miyaa la yidhahdaa waxaan rabnaa waddankaa inaanu qabsanno oo shidaalkiisa iyo xoolihiisa soo qaadanno mise waxaa la yidhaahdaa waxaa la rabaa dadkaasi in dictatorka laga turo xorriyadda la gaadhsiiyo xorriyaddani waxaan waa afbeenbeen cidna xorriyad lama gaadhsiina cid walba waa la soo boobo waa la tumay idan waa suuqgeynta waa dadka si looga dhaadhiciyo waa inaan la odhanin war dowladda hadday imika inta istaagto tidhaahda waddankaa waxaan rabnaa wixii soo dheer inaan soo qaadanno soo la odhan maayo war nimankani miyay waasheen laakiin hadday yidhahdaan waanu soo horu marinaynaa xataa markii layna gumaysanayey lama odhanin waanu gumaysanaynaa waxaa la yidhi maxay isticmaar colonku waa maxay waa to cultivate waa beerista waa horu marinaynaa baa waa layna soo horu marinayaa baa la yidhi xadaaraddaa layna soo hadda waa lagu gumaysanayaa gumaysigiiba waxa loo bixiyay inay tahay horumarin idan waxaad jaamacaadka iyo meelaha kan iyo cultureka ugu tegi doontaa mabaadi' badan oo magacyo kala wadata xaqiiqadu saay wax kala tahay idan shubhada waxa saara bay culammadu yidhahdaan daliil caddayn baa saarta qof lagama shakisiiyey ilaahay jiritaankiisa haddaad tidhaaho salaada tuko dee muxuu tukadaa waxaa isku hayaa ma jiraa mise ma jiree idan waa inaynu barannaa tadciimkii waa inaynu yeelannaa
caqiidadeena inaynu toos u barano. kaasi waa shayga koowaad. shayga labaad dee ninka dhallinyarada waajihaya waa taxaddi alakhlaaqi waasuluuki. jaamacad ama iskuul baa tegi doontaa. iskuulka dadkao dhammi wuu isku dhex jiraa, inamo iyo hablaba, dhallinyaro caafimaad qabta oo wada xooggan oo qaawan baad dhex tegi doontaa. maada tafcal, maxaad yeeli? hablo adiga ku saloolanaya, inamo ku saloolanaya, meesha oo dhan oo la isku sii daayey, oo dhallinyaro dad wada oo caafimaad qaba xooggoodu u dhan yahay. idan waa taxaddi akhlaaqiya, waa shahawaati nafs. dawadeedu waa alcifa wa taqwa allah. nebi yuusuf baa meel ka adag galay oo gabadh isku dayday inay iqraa ku samayso, inay duufsan karto, oo diiday, oo xataa markii dambe isku dayday inay xoog ku kufsato. ilaahay qur-aanku inoogaga warramayaa nebi yuusuf yaa wuxuu yeelay. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. الباب بدأ يحرتي بقى إلى هير دبيتنا وهيسكت دايدين كفصته، لكن وهيسكت دايين ومحي كبد بادي كرو. إلهي وحصوصنا هذا، إلهي وحيدين لي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وارهد ورسنادان كوا أنجور هلينني إلى ينت إلهي كغني يلي. دلنيري وحلو إلى ما جورسو أما الصون وإلهي كعبسو وكحدا مساجد يوم إله هذا الله كعبسك كهليس. هذا قارك حيسين تشدال كبوحيسو واترادا ولقي بو اسكا سعريا كورن مال دحي markaad marayso buu surbacaadi doona Soomaha ayba wax waliba ka dhamaan doona, laakiin wuxuu u baahan yahay markaad aragtay inuu dhamaanayo inaad shidaal ku weecsato. maxay kaga shubatid? aad zaadka qaadatid. masaajidda iyo dhulka iimaanka lagu hayo iyo muxaadaraadka iyo meeshani waa meel uu qofku zaadka sii qaato. markaad aragto weelkaagu inuu sanqarayaba, in xagga belada lagu sii hayaba, kaalay masaajidda iyo cibaadada dhulka lagu haya khayrka zaad cusub baad qaadanaysaa muddo. maxaa laynoo yidhi toddobaad kasta salaad jimce tuko oo khudbad soo dhegayso. waa qofku inuu zaad helo, waa inaad hesho sahaydii aad toddobaadka ku jiri lahayd ee kusii joogi lahayd waa inaad heshaa. meesha tanaad joogtaan marka waa meel khatara. iskuullada iyo jaamacaadka waxay yaallaan noloshaasi rag iyo dumarba la isku daray. rag iyo dumarba siday u dhowrsanaan karaan? waxay dhowrsanaan karaan hadday xidhiidhka ilaahay la leeyihin uu xooggan yahay. xidhiidhka alle la leeyihin hadduu xooggan yahay iyo hadday u suurto gelayso inay guursadaan. waalidiintana waxaan leeyahay war guurka fudaydiya oo dhaqankii hore ka daaya. intaa fudaydin kartaan fudaydiya. intaa fudaydin kartaan fudaydiya. oo inan iyo inanba inuu guur xalaala helo, xataa haddaanu korin karin 2-3 sannadood ee jaamacadda la wado, xataa haddaad doontaan waxba ha dhalina. laakiin waxaa la rabaa inaad dhowrsanaato oo qof muslim oo dhowrsoon sidaad u noqon lahayd in la tijaabiyo. masalada saddexaad ee dhallinyarada ka hor timaada waa faqriga. ardaynimada iyo faqrigu way wada socdaan. dhallinyaraduna inta badan waxay sidhaahdaan waar bal horta sanad ku yaro tuur shaqo oo yaro xoogso, dabeetana mushaharkaasunbaa la macaanaado halkaasunbuu ka wadaa, hadhowna 5 ciyaalunbuu dhalaayo. wuxuu isidhaahdaa waar jaamacadna ku noqon kari mayside iska xoogso oo sii wad buu isidhaahdaa. waar inaad sanad iyo 2 iyo 3 faqri ku noolaatid iyo inaad noloshoo dhan xamaal iyo faqri ku dhammayso iyoma roon. inaad nolosha oo dhan xamaal ku dhammaysid iyo inaad ku tala gasho sanad iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 inaad wax baratid, laakiin aad hadhow mustawa fiican ka bilowdid. dhallinyarada waxaan leeyahay faqrigu akhlaaqdiina iyo diintiina ayuu xumaynin. dhallinyarada bar baa markay faqriday tuuga u dhaqaaqay. dhallinyarada bar baa markay faqriday
suuqa madow u dhaqaaqay dhallinyarada badh baa markay faqriday mukhadaraad iyo beliya baas u dhaqaaqay oo quick money war lacag degdega xaggee laga helaa bay tijaabiyeen dee waxaa laga heli karaa daroogo iyo suuqa taana maalmaha hore la soo jiidanayo maalintii 3,000 4,000 soo hel bishii horeba 150,000 buu helay waa ku soo waday aakhirka xabsigaad ku dambaynuun tuug wuxuu maanta qaado berri qaado la qabay unbaa xigi socankaa maaha daa tuugada waddo uun maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 100 markaad baxsataba aakhirka waa lagu qabanaya uun la qabay baa xigi doontaa waxaan uga dan leeyahay war suuq madoobi maaha wax la galo darooga wax la iibiye maaha tuuga wax la sameeya maaha qof identity la noqo soomaalidii hore waxay ku mahmaahi jirtay waad baahatay looma bahala cuna bay odhan jireen baaha ay hayso dabeetana wax walba waan iska cunayaa maaha caqligal bay odhan jireen waanu baahanno waxba waa weyna suuqaanu iska gelaynaa waxaanu doonaa baanu samaynaynaa noloshu saa maaha waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dullinimada ka baxno madalla weeyaan inaad mukhadaraad iyo suuq madow iyo maxaa la yidhahaa tuuga iyo waxaan dhaamin inaad ka shaqayso ilaahay qolu qur-aanka ku tilmaamay yaxsabuhum اljaahilu aghniyaaa min atacafuf qole la yidhi haniyadu waxay moodayaan dad wax haystaa siday u dhowrsoon yihiin daraaddood ayuha alaxiba waxaan idin leeyahay dhallinyaroy 3daa challenge baa taagan meesha tan inaad wax noqotaan ka koowaad waa khatar oo diintiinu khatar ku yihi ka labaadna akhlaaqdiinu khatar ku yihi ka saddexaadna dhaqaalihiinna iyo mustaqbalkiinu khatar ku yihi 3daba haddaad ragtiin waa ka bixi kartaan haddaad tale iyo go-aan iyo ilaahay oo aad tala saarataan yeelataan 3daba waa ka bixi kartaan haddaad rabtaan adduunkan inaad markaa wax ku noqotaan facalaykum bilcilm haddaad rabtaan aakhire inaad wax noqotaanna facalaykum bilcilm labada goorba waa cilmi laakiin cilmigii halkan yaalay dhibaatadaasaa la socota dhibaatadaana waxaad u baahan tahay inaad challenge garayso oo qof diin iyo akhlaaqla aad noqoto waalidkana waxaan leenahay war dhallinyarada dhibtaasaa hortaagan maadaama dhibta intaa leeg ay hortaagan tahay isku day aqoonta inaad u fudaydin karto oo dayntan iyo waxaan ka daysi oo guriga joogo oo wax ka cuno isku day inaad dhistid oo aanad meeshaa un geynina inuu diintiisa iyo caqiidadiisa bari kartid isku day baynu leenahay haddii loo guurin karo wiil iyo gabadhba in loo guuriyo isku day baynu leenahay in laga ilaaliyo dadka xunxun iyo suuqa mukhadaraadka iyo beliya baaskan in laga ilaaliyo idan challengeskaasa hortiina yaalla haddaad waalid tahay iyo haddaad nin dhallinyaro a tahay labadiinaba wuxuun baynu kaga bixi karnaa markaa iyadoo ay ilaahay ku xidhanno oo cibaadada laasimno oo ka mid noqonno kuwuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam 7da aakhiro carshuraxmaanka hadhsan doona waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro oo cibaado ku koray ama uu nebigu lahaa ilaahay wuxuu la yaabaa nin dhallinyaro oo aan inxiraaf iyo weecweecad lahayn ina rabbaka la yacjab lishaabi laa sabwata lah wiil dhallinyaro aan weecasho lahayn waxaynu u baahannahay inaad noqotaan kuwuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam 5 horteed ka faa'iidayso nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin caafimaadka ka faa'iiday intaanad xanuunsanin firaaqa fursadda ka faa'iidayso intaanad mashquulin dhallinyaronimada ka faa'iiday intaanad gaboobin waxhaysadka ka faa'iiday intaanad faqrinin su-aasha aakhire lagu weydiin doono ee ah war dhallinyaronimadaadii maxaad ku bixisay inaynu ka hortagnaa baynu u baahanay haddaba si aad waalidkaana uga farxisid oo qofku rajaynaya aad u noqotid aakhiradaadana aad u hagaajisatid adduunkaagana uu macno u yeesho bulshadaad la noosha inaad waxtar ku noqotid ilaan iyaba maal bay ku geliyeen iyo wanaag waxay kaa rajaynaya inaad waxtar noqoto bulshadaad la nooshahayna aanad cib'un calayhi qof ku culus noqonina waxtar aad u noqotid facalaykum bilcilm
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.